soo dhowow walaal Ramadaan Mubaarak. Maanta waxaan ku wadnaa sheeko gaaban oo xikmad leh. Waqti aan waqtigan ahayn waxaa si wada jir ah u wada noolaa nin ganacsade ah, xaaskiisa iyo carruur ay dhalayn. Qoysku aad ayay noloshoodu ugu raaxaysanayeen, waxay lahaayeen digaagad qurux badan, maalin kastana waxay maalin kasta dhali jirtay ukun dahabi ah oo ay lacag badan ka heli jireen. Laakiin ninka ma ku qanacsanayn waxa uu maalin kasta helayay. Waxa uu rabay inuu ukumaha oo idil mar qura ka wada helo digaagadda. Waxa uu ku fikiray sida arrintaa ay u dhici lahayd. Isla markiiba waxaa ku soo dhacday fikrad ah inuu digaada dilo si uu u helo ukumaha dahabiga ah oo wada jira. Digaagaddii ayuu soo qabtay, qoorta ayuuna ka jaray, jirkeeda ayuuna jaray. Laakiin waxa uu arkay dhiig socda oo keliya, aad ayuuna u shoogay sababtoo ah hal ukun xitaa ma uusan arkin. Noloshii qoyskana waxaa soo hareeyay faqiirnimo. Xikmadda sheekada: qofkii wax badan dacmiya dhammaan ayuu waayaa. Fadlan ha ka iloobin share, like and comment haddii ay ku qancisay xikmadani.